maayirada badi Somaliland iyo hay'adaha qaadaan bixiyaasha ee Somaliland ayaa maanta ku soo gabagabay kulan hawleed saddexdii maalmood ee ugu dambeysay kaasi oo laga hadlayay mashruuca horumarinta ee loo yaqaan GPLG. Mashruucani oo badi ay gacanta ku hayaan dawladaha hoose ee Somaliland ayaa kulankaasi markii uu soo idlaaday waxa halkaasi kula hadlay saxaafadda maayirka caasimadda Hargeysa iyo maayirka magaalada Burco iyo maayir ku xigeenka magaalada degmada Sheekh oo ka warbixiyay muhiimadda mashruucan uu leeyahay. waxaa dib u eegista sanadkan 2015 ahayd iyo qorshaha muxuu ahaa labada sano soo socda 16 17 mashruuca laga yaabaa inuu dhamaadaan uu gabaabsi yahay maadaama ay World Bank iyo soo galayaan bilowgiiba imka Hargeysa la kala heshiiska koowaad iyo wasaaradda maaliyadda marka labada sano qorsho iyo dib u eegistii 2015 ayaan ku jirnay istaqaasho hawshiisu gabagabo maanta aan dhammaynayno waliba qolyaha la GPLG oo dawladaha hoose si gaar ah ula shaqeeyay maanta saddexaad waan soo xirmayaa meel wanaagsan oo maray iyo section damba u xil saaran ILO-da kamida wasaaradda arrimaha gudaha kamida muxuu ahaayay dawladaha hoose qayb kamida waa kamida waa wax transparent oo la shaaciyo la qaato muddo loo qabto laga soo jawaabo la baaro injineeradana ku jiraayano maayarka iyo ku xigeenkiisa iyo xogeeyo midna kuma jiro xagan soo maray xildhibaan Ibrahim Axmed oo ka tirsan xildhibaanada gobolka Sanaag ee Cergaabo ayaa shaaciyay in mashruucani uu yahay mid gaabis ah oo ku eeg inta ay laamidu marto hadda wuxuu ka socdaa gobolada inta laamigu maro wax kale oo ka socdaa ma jirto iyo waxa loogu talagalay intaas awdal ilaa iyo tobleer inta u dhaxaysa GPLG inuu ka shaqeeyo marka anagu Sanaag waxaan leenahay hadda raan meesha ka cadeynay inay Somaliland aan ka mid baahay waayo waxyaabaha loogu dari waayay mar hore maayarkaygu hordhigay mar hore saddexaad buu hordhigay mar haddeer wuu hordhignay alaanka lama ogola waxaan leenahay GPLG-ga la'aantii dalku ma hormarayo goboladu ma hormarayaan degmadu ma hormarayso waxaan leenahay ha lagu daro haddii lagu dari waayo dawladda iyo xukuumadda waxaan u sheegaynaa in ay Somaliland ka maaragtay Sanaag. Cabdiraxiin Xaashi Cumar, Somali News TV, Hargeysa.